So now I give you the best options that you can learn and improve your English. Then what are you waiting for? waxaan ku siiyay wadooyinka ugu wanaagsan ee aad ku baran karto ama aad ku horumarin karto luqadaada Englishka. haddaba haddii aadan ku dhaqaaqin ama aadan bilaabin in aad luqadaada Englishka horumariso ama aad barato oo aadna daawatay labadii muuqaal ee aan soo saarnay, sidoo kale haddii aad daawatay muuqaaladii aan hor u soo saarnay uuna ka mid yahay podcastigii soconaya 23 daqiiqo, waxay ka dhigan tahay saddexdan midkood inaad tahay in aad qof caajis badan tahay, in ay naftaada kuugu sheekayso in aadan waqti haynin, ama in aad tahay qof ay maskaxdiisa iyo naftiisa ay ka adag tahay oo yacni aanan go'aan qaadan karin. saddexdaas midkood ayaa tahay. waxaan soo saarnay asbuucan gudihiisa labada muuqaal oo aan ku sharaxayo yacni wadooyinka ugu fiican ee aad maaragtay ku baran karto kuna horumarin karto iyo applicationka ugu fiican ee aad iskaas kugu bari karto luqadda Englishka. marka haddii aadan gacan u qaadin ama aadan weli isku dayin, yacni waxay ka dhigan tahay in aad adiga wax horumar ah aadan doonaynin, in aad doonaynin in aad luqadii horumariso, in aad yacni excuse badan aad samaysanayso, in aad leedahay in English waa luqad gaaleed, aniga luqadeeda Soomaali waaye. That's a fucking excuse. waxaas waa excuse aad samaysanaysid. yacni maskaxdaada aad ay u dambaysaa haddii aad maaragtay waxyaalo noocaasa aad ku fakarayso ama naftaada ay waxyaalaha noocaasa ay ku fakarayso. ma ogtahay haddii aadan maanta ku hadli karin luqadda Englishka in ay la mid tahay in aad tahay yacni qof ummi ah, yacni qof aanan waxba aqoonin oo kale. ummi inta badan waxaa la yidhaahdaa qof aan waxna qori karin waxna akhrin karin. so haddii maanta luqadda Englishka aadan waxna ku qorin karin aanna ku akhrin karin, yacni qof ummi ah oo kale ayaa tahay. sababtoo ah Englishka maanta waa waxa kaliya ah ee maaragtay qof kasta kula dhaqmi karto. haddii wadan kale aad aado, haddii maaragtay aad yacni markasto ayaan ku soo celceliyaa muuqaalada aan soo saarno inta badan oo Englishka aan oga hadalno, yacni ereygaas waan ku sheegaa. haddii aad shaqo rabto inaad codsato, haddii aad rabto in aad wadan kale aado, haddii aad safarto, haddii aad wadan kale caafimaad u aado, yacni many things ayaa kaaga xiran Englishka. laakiin haddii maanta kadib aad dhahdo English ma aqaano, ama aad dhahdo yacni ama lagaa dareemo in aadan ku hadli karin English, yani waxay la mid tahay in ay aqoontaada wax ka dhiman tahay oo kale. just luqad ma dhihi karno Englishka, yani waa aqoon oo kale. sababtoo everywhere in meel kasto aad aadid waxa aad dadka kula tacaamulayso, waxa aad dadka kula xiriirayso, waxa aad dadka isku fahmaysaan waa un luqadan. so luqado kale oo badan waad baran kartaa yani haddii aad ugu talagashid naftaada challenge. bal bishaan inta ka dhiman iyo bisha soo socota bal naftaada ku challenge garee. isku day in aad maaragtay naftaada challenge uga dhihi karto in aad maalin kasto erey cusub ama wax cusub oo English ku saabsan aad barato. naftaada challenge oga dhig, isku day inaad samayso. anigan kula hadlayo nafteeda waxaan challenge bishan oga dhigay la soo dhaafay hadeertan iyo bishan hadda socotaba waxaan nafteeda challenge oga dhigay in aan barto Isbaanishka, luqadda Isbaanishka, oo aan hormariyo luqadda Isbaanishka. sababtoo waan jeclahay, waxaan rabaa in aan ku hadlo luqadda Isbaanishka. yani it doesn't mean inaan rabo inaan dalka Spain ku noolaado, laakiin waxaa jiro wadamo badan oo luqadda Isbaanishka ku hadlo. luqadeeda targetkayga xiga ahna waxay noqon doontaa luqadda Faransiiska, sababtoo waxaa jiro wadamo badan oo luqadda Faransiiska ku hadlo. soo ma doonayo in aan meel kasto aan tago in aan waayo yani wax aan dadkaas halkaasi jooga ama goobtaasi jooga wax aan kula xiriiro in aan waayo, yani ma doonayo. so carabiga laftirkiisa xoogaha yar waan fahmaa laakiin kuma hadli karo. soo asagana balankiga ayuu ku jiraa, sababtoo carabiga waa luqadda labaad. adiga marka hadda maxaad doonaysaa inaad samayso? waxaad doonaysaa inaad samayso haddii aadan hormarin luqadda Englishka waxay ka dhignaan doontaa inay waxyaalo badan kaa dhiman yihiin. sidoo kale aniga haddeertaan waxaan dadaalkan u bixinayaa kaliya inaan muuqaal samaysto maaha, inaan course soo wado oo kale oo aan rabo inaan yani ka iibiyo maaha. of course waan samayn doonaa oo hadda waxaan ku gudu jiraa course aan samaynayo, laakiin haddana sidaas ay tahay waxaan rabaa qof kasta oo maaragtay Soomaali ah in uu luqadan ku hadlo. waxaan bilaabi doonaa muuqaalo aan idinkugu soo gudbin doono ereyada daily life-ka la isticmaalo. waxaan soo gudbin doonaa ereyadaas oo ah ereyo daily life, yani ereyada maalinlaha loo isticmaalo ayaan maaragtay muuqaalo noocaas ayaan samayn doonaa. yani ama isbuuci hal muuqaal ama laba muuqaal
oo ku saabsan kuwa ereyadaas ayaan idin soo gudbin doonaa. Waxaan idin soo gudbin doonaa yani ereyada daily life ka la isticmaalo ayagoo jumlad ku jiro, ayagoo maaragtay adi sida ugu fiican ee aad ku fahmi karto ayaan usoo gudbin doonaa. So marka waxaan rajeynayaa inaad tallaabo qaadi doonto, inaad muuqaalkan uu noqon doono muuqaalkii aad ku dhiiran laheeday, muuqaalkii aad isbedelka ku sameyn laheeday, muuqaalkii aad ku dhaqaaqi laheed inuu noqdo ayaan rajeynayaa. haddii aadan kanaalkan weli aada subscribe saaranin oo aadna rabto in aad luqadaada hormariso, waxaan kugu dhiirigelinayaa in aad haddeertaan subscribe saarato. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada ka mid ah in aad u gudbiso linkiga muuqaalka oo aad u share garayso. ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan, ku raaxayso noloshaada. Assalaamu calaykum.